marka noloshan adduunyada macaankeyga raaxadeeda jannadeeda waa ilaahay macrifadiisa alladina aamanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikri illah ala bidhikri illah tatma'innu alqulub ilaahay alladina aamanu kuwa ilaahay rumeeyay ee qulubtoodu taacada ilaahay iyo dhikriga ilaahay ay ku xasilayso ilaahay baa yidhi alaa intabihu ilaahay baa inoo nasteexaynaya ilaahay baa inoo yeedhaya ilaahay baa inoo khayr miiraya walaa yunabbi'uka mithlu khabiir fas'al bihi khabiira waman asdaqu min allaahi qiila ilaahay baa kuu warramaayo kule war qalbigiinnaasi wax kale ku xasili maayo aniga macrifadeedu qalbigiinnu ku xasilaya qalbigu salaadu ku raaxaystaa qalbigu qur-aanku ku raaxaystaa qalbigu dikriga ilaahay buu ku raaxaystaa qalbigu taacadda ilaahay buu ku raaxaystaa nacam nin a'immada muslimiinta ka mida ayaa odhan jiray khamsun min dawaa'i alqalbi shan ayaa qalbiga bini aadamka dawaysa tilaawata alqur'aani bitadabbur qur-aanka oo lagu akhriyo tadabbur iyo tafakkur iyo qiyaama alleyl iyo saacadaha dadku ay jiifaan oo la kaco ilaahay tabaaraka wa tacaala la hor joogsado wa tadarruc cinda asaxar iyo waqta asaxar xilliga suxuurta ay tahay oo ilaahay jalla wacala lana munaajoodo wa khalaa'u lbadni iyo calooshaadoo mar walba badhnaata wa kasratu siyaam bay culimmadu leeyihin inuu qofku soonkiisu bato wa mujaalasatu saalixiin dadka war wanaagsano lala fadhiisto shantaasay culimmadu yidhahdeen qalbigeed dawaysaa tilaawata alqur'aani bitadabbur kanaga qur-aanku maasha allah waan iska akhriyayna tadabburkii baa naga maqan asxaabta rasuulka radia allaahu canhum laga yaabaa hal aayadoo qur'aan ah sida habeenka ugu celcelinayaan buu waagu u baryaayay wabadaa lahum min allaahi maa lam yakuunuu yaxtasibuun sufyaan athawri raximahullah aayaddaa qur-aanku habeenkii markuu salaatileylkii xidhay markuu gaadhay wabadaa lahum min allaahi maa lam yakuunuu yaxtasibuun waxaysan ilaahay ka malaynayn ayay kala kulmeen banka qiyaame hadduu lahaa khayr baan wataa may khayrkiisii ma aha arrintu way ka weyn tahay salaad baan wataa salaadda waa lagu badbaadayaa laa shakka laakiin muuminku halkaa markuu banka qiyaame ilaahay hor joogsado salaadii iyo soonkiisii eegi maaye ilaahay raxmaddiisa buu maanta eegaya qofka mu'minku ilaahu raxmaddaadiin buu leeyahay aayaddaa qur-aanku waagu ugu bariyey abi bakr sidiiq radia allaahu canhu markuu nebigeennu xanuunsado xanuunkii la dhacay ayaa nebiga lagu yidhi salaaddii baa taagan nebi allow markaasuu nebigu yidhi abubakar u sheega ummadda salaadda ha ka bixiye caaisha radia allaahu canha oo ag taagnayd nebiga ayaa ku tidhi inna abaa bakrin rajulun raqiiqun abubakar waa nin qalbi jilicsan weeyaan idaa qara'a alqur'aana halabahu lbukaa hadduu qur-aanka akhriyana oohintiisa ayaa qur-aanka ka qaalib noqota وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه صلاة الليل كي هبينك مرقو مسجد النبي صو غلي وحو اركay inay yar oo suurada tuur ku tukanaya qiyaam leelkii quraankiisii buu dhageystay markuu gaaray yarkii yara inna cadaab rabbika la waaqi cadaabka rabbiga waa kii dhici doona weeyaan aayada Umar markii uu gaarayna dhulku ku dhacay Umar bin Khadaab inta la qaaday ayaa gurigiisii la geeyay bil ku dhabu xanuunsana xanuunkiisa meeshu kaga yimidna lama ogeyn مقداد رضي الله عنه صحابي لو رجل مقداد بن الأسود هبينكي مركو حاسكيس أكسر حضبي تري سداس وقل قلجرة سداس وهبينك وقل قلجرة سداس مركاس يكتر والمحل قلجرة ما بقتا ما تسيحتي ذا مركاس ورجل عبسدا حصوصت أنا حصوصنا النار جهنم أيا هرددي الراحة دي قاضي ورجلي يخافون قرآن كي آخرين يكو لكن تدبر بيكو آخرين تفكر بيكو آخرين laga yaaba hal aayado quraana habeenka dhan inuu ku soo jeeday nabigeenu kaleey salaatu wassalaam waa kii abi bilaal ba u yimid salaadii markay gaadhay ya rasuulullah salaadii ba laga sugaya waa nabigu lilmada ka daadatay maalintaas garkiisii intay dhaaftay laabtiisii qoysay halkii wajiga uu dhulka ku hayay way qoysay markaasuu nabigu ku yiri ya bilaal xalayto la aayadaha quraanka igu soo dagay waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin li ulil albab الذين يتفكرون في خلق السماوات إلى آخر سورة آل عمران آياتها سحالة يقصوا دقيب النبي يقولي نكا آياتها أخريا إن أنت تدبرون أن تفكرين كاسوا خسارة ورسولكم يقولي تدبر صدح عمل مركز هاي سهداب قلبك خشوعات كوي دبي علماء دولادين قلبك سؤول لسيه ورد صدوي
quraanka markaad akhriyayso iyo salaada markaad ku jirto iyo markaad ducaysanaysid quraanka markaad akhriyaysid iyo salaada markaad ku jirtid iyo markaad ducaysanaysid saddexda marxalo markaad ku jirtid haddii ilmadu ay ka daadan weydo qalbigaaguna uu khushuuci waayo waxay culimadu leeyihiin qalbigaas uu bukaaye qalbi xanuunsan ilaahay alla hortagin